حسن الشيخ يتيم كيس الدم شديد والله وبالله تالله من الصومالي أقون وإلهي أقون وآخرة كبقين وأدون كبقين وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaa sii darsanaysa xaaladda madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda kooma ku jiro marunba in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud lagu sameeyay dalka Imaaraadka Carabta maadaama booqasho dhowr cisho qaadatay uu halkaasi ku tagay danta ugu jirta dowladda Imaaraadka Carabta inay qaarijiso Xasan Sheekh Maxamuud waa maxay muuqaalkan uga bogo daawade marka hore haddii aad jeceshahay inaan halkan saaxiib ku noqono si wararka iyo warbixinada aad ula socotaan YouTube-kan subscribe saaro furo gambaleelka haddii aad ku cusub tahay channel-keena Xaqiiq TV waa wehelka bulshada waxaan ogaan doonaa taageerayaasha jamaahiirta nabad iyo nolol inta ay leeyihiin muuqaalkan laygareeya siina gudbiya oo saaxiibadeen u gudbiya si ay u ogaadaan dhagarta iyo sidoo kale waxyaabaha loo maleegay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud horay arrinkan waxa uga digay madaxweynihii daacadda ahaa ee soo maray wadanka burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya kadib Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ilaahay dambigiisa ha dhaafee cadowgiisana Allah ka qabtee ayuu waxa uu sheegay in Imaaraadka Carabta uu yahay cadow isla markaana aan ogolayn in dowladda Soomaaliya ay markaasi cagaheeda isku taagto hase yeeshee Xasan Sheekh Maxamuud iyo xulafadiisa oo islaha ku xume ayaa waxa ay markaasi lagu hadarsadeen dhiiqo maadaama Xasan Sheekh Maxamuud oo horay uu isagu u sheegay in lugaha dhiiqo dadka loo gelin jiray hadda asaga ayaa lugaha dhiiqo loo geliyay balaan arko taageerayaasha kale ee damuljadiid muuqaalkan la wadaaga saaxiibadeen haddii aad rabtaan xaqiiq iyo sidoo kale warar dhexdhexaad ah waxaan idinka codsanayaa inaad YouTube-keena aad subscribe saartaan si maalin walba aad ula socotaan warbixino kala duwan oo dunida daafaheeda aanu idinkaga soo gudbino mahadsanidin hogaamiyaha damuljadiid Xasan Sheekh Maxamuud oo laf dhungashay ku noqday madaxweynihii isaga ka horeeyay ee Farmaajo ayaa hadda xaaladiisa caafimaad laga soo dayrinaya xalay saqdhexe ayaa xarunta Villa Soomaaliya laga saaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kadib markii uu aad u darsaday waxaana aad loo adkeeyay amaanka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa loola cararay mid kamid ah xarumaha caafimaad ee dowladda Soomaaliya ay gacanta ku hayso waxaana isku gadaamay baabuurta qunfulan ee AMISOM iyo sidoo kale ciidamada koofiya casta loo yaqaan ee madaxtooyada Soomaaliya ilaalada ka haya dhaqaatiirta la socda caafimaadkiisa Xasan Sheekh Maxamuud waxay sheegeen inta uusan Muqdisho ku soo laaban madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in cunada sunna loogu daray maadaama dowladda Imaaraadka Carabta aysan raali ka ahayn in Soomaaliya ay noqoto dal madax bannaan oo dunida la xifaaltamo ciidankiisana dhista Xasan Sheekh Maxamuud iyo xulafadiisa oo sambaatiyo ka diyaarsay islaha dowladda Imaaraadka Carabta kuna xumeynayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo xabiibul malaayiin oo isaga dalka ka raacdeeyay cadowga Soomaaliya ee Imaaraadka Carabta ayaa haatan shalay ka qaba dib u soo nooleynta xiriirkii ka dhaxeeyay dowladaha Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta maadaama ay isaga dhagareeyeen oo sun u walaaqeen halisna ay geliyeen caafimaadkiisa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud howlwadeennada xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxay la walaacsan yihiin xiriir kala duwan mar aan la sameynay inoo sheegeen halka ay ku dambeyn doonto xaaladda caafimaad ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud maadaama sun laga helay jirkiisa cuntadana ay ugu dareen shaqaale markaasi loo diyaariyay inay nafta dhaafsiiyaan maadaama dowladda Imaaraadka Carabta ay iyadu markaasi dhagar aad iyo aad u xun ay u maleegtay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dhinaca kale jamaahiirta nabad iyo nolol oo arrinkan la xiriira in dowladda Imaaraadka ay sun siisay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya maqlay ayaa aad ugu farxay soona dhaweeyay haddaba sababtu waxay ku sheegeen in arrintan ay tahay mid ay horay uga digeen isla markaana xabiibul malaayiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu isagu ka dheregsanaa dhagarta Imaaraadka Carabta iyo dowladaha Carabeed ee iyagu markaasi qulubtooda xaasidnimada iyo shayaadiinta ay ku nooshahay ee aan rabin in Soomaaliya ay cagaheeda ku istaagto uu arkay dabeedna kooxda damuljadiid oo iyadu markaasi rabtay inay sambaatiyo ka diyaarsato wadamada reer Carabeed ee aan jeclayn horumarka shacabka iyo sidoo kale dalka Soomaaliya ayaa ay markaasi waxay ku sheegeen inay ahayd talaabada markaasi lagu sameeyay Xasan Sheekh Maxamuud mid ay aad ugu faraxsan yihiin ayna soo dhaweynayaan waxaana Allah ay uga baryeen inuu Ilaahay dunida uu dhaafsiiyo maadaama ninkani uu yahay nin aad u dhagar badan Xasan Sheekh Maxamuud oo dowladii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi oo dowladii hore ee Soomaaliya uu hogaaminayay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ay isagu ka shaqeyn weysay haddaba waxaanu leenahay Ilaahay ha caafiyo caafimaad taam ahna Ilaahay ha siiyo waxaanu u ducaynaynaa oo Ilaahay aanu u baryaynaa inuu Ilaahay ka soo samata kiciyo sunta la siiyay iyo sidoo kale xanuunka aadka u daran ee haya madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud waxaan idinka codsanayaa inaad u ducaydaan madaxweynaha in Ilaahay uu ka soo samata kiciyo xanuunka sunta haysana Ilaahay markaasi uu uga dhigo mid fudud oo wadanka markaasi aan madaxweyne la'aan dhigin Farmaajo waa lagu goobtay
bal dadaalay waa daymooha wixii idin dambeeyo annaga yurubaan joognaa wax naga maqan male shaqaan haysanaa nololaan haysanaa wax kasta waa haysanaa soomaaliyana ma ku noolni kursina ma ka raadihooni waxaan u oohoyno shacbiga Soomaaliyeed waaye waa ka ciidan hadda bees ay helaan waa la isku fadhiyaa gabadh hadday goobta ku jirtaa Bidenna maanta ku dhawaaqay 100,000 ciidan Mareykan Soomaaliya u socoto markii farmaajo dhaqaaqi la ogaaday shabeell iyo shaydaan walba socoto shabeell iyo shaydaan wax la qaabili karo nin munaafiq ah wax la qaabili karo nin tuug ah wax la qaabili karo nin ilaahay ka furtay annaga haddaanu nahay nabad iyo nolol codkii shacbiga xildhibaanka waa diidi maaho ha codkii dhalinyarada waa diidi odayaasha waa yeel daayar idqow xataa maatada waa diidi maaho itfadal nastanakum waa idin sugeena xaar dawo ma ka dhamaato dadkii u qaatay nabad iyo nolol inay qasaareen nabad iyo nolol ma qasaareen nabad iyo nolol waa guuleysteen waxay ku guuleysteen dulmiga caalamkoo dhan laga arkay bal waa arkayna lama bil ama 3 bil dhaxdiina haddaad isku bilaabi weysiin heer wax daran anu waa idin kasa dhaxdiina haddaad is cuni weysiin haddaab la isku haystaa yaa ra'iisul wasaare Soomaaliya laga dhigaa ra'iisul wasaare madaxweyne haddii sawiye noqdo ra'iisul wasaare daarooda la rabaa ma hoye ha hey war fiican waay ha madaxweyne oo hawiyaas noqdo ra'iisul wasaare daarooda la rabaa daarood haddii madaxweyne noqdo ra'iisul wasaare hawiya la rabaa ma ho tanaaba hadda la isku haystaa maxamed xuseen rooble ra'iisul wasaare rabaa dani ra'iisul wasaare rabaa خير رئيس الوزراء ربا دنا رئيس الوزراء من خاي لكن نين اسوتس كنسها بركي عدكودا كوسيين هذا فرماجه ما كبدل لهن والله طشت فرماجه سدح الدبانه اتو حلتين شياطين اهو الهي انك بقين انه اتو حلتين توغده اهو والله لكن عيدك waxaan leeyahay hal bil hadad mushaaraad waysaan guryahooda ugu gala xildhibaanada munaafiqiinta oo tuugada oo la isku keenay guryahooda ugu gala والله وبالله وطلع هداد مشار هل بلاد ويسار حسن شيخ محمود مشار ما بحيه حسن شيخ محمود دولة الشيخ وشقية حسن شيخ محمود كل شيء مرحبا واي دارك أصل استواء وجدين قريالك أصل استواء وجدين حسن شيخ محمود شعبي ما دورنن حسن شيخ محمود منافق دورتين منافق نوح منا يا غاضايا هاي محمد عبد الله فرماجة وبحي موهو والله خير كيسا إلهي كينايو ونبط إنولو حسن الشيخ iyo tiimkiisa damtadii wallahi billahi tallahi min Soomaali aqoon oo ilaahay aqoon oo aakhira ka baqayn oo adduun ka baqayn tuug roob la baahani madaxweyniisi waa dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo ahaa dawladii nabad iyo nolol bay ahayd asagii baa wali shaqeynaya hadda markuu doolar arka madax xoqanaya ninka iimaan la'aan intuu ka qabo waxa weeye lacagtaas wax allaaliyo waxay hadduu dad xil waxna ma magacaabi karo waxna xil ma siin karo